السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابي وين السلامين مركو هورا شهر قرية مقال كان هلا فافيو تنحكتا وحاول تنالك بوقا أو سبسكرايب يا لايك سار واحد اللي كلنتونا أكثر موضوع إنه ما تحكوا سابي وحسوها هاللينا أرمي بضد الصومالية كمرو صناعين يا كينيا قضب قاسو آدم مهم وحساسية أو أباهن إن آدلو فلنقية لنا فرفرو سياسيين تي فكر كود يوحيالا بدن وقصابسا أباون قدو قلي دورنا واحد الله ورلي ما ودينا وهاقاد قضب كوغو ريبلاين داون يبال تصاليال كصابسان سيدي وحيهين iyo qaabkii ay siyaasiyiintu iyo jawaabihii kala duwanaa iyo fikradihii ay qabeen ay ka hadleen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي أصحابي وأنا وإذا على الخواجات وحليدي ومركلة دم يكونون أحسن. وأنا سلامي لما تحد في دون أحسن موضوع أن ما تحكوا سابسين هاي. حاجين مرسى حالات كينيا الصومالية بدل السكويسي يو ملاحظي لو حل صاري لو المضي موضوع عاص إلا هذا حل وراء أنا كينين أو كم مشغول صن بروباغندا يلالوش وكم بدين رئيس خير يا مدحونا فرماجو وهاجد وحنا هذا قلب كوبا كسوق هذا قيبتي صورة بالعنداونا fikradihii iyo markii ay arintaasi ay soo ifbaxday maaragtay ay soo gashay social media-ga jawaabtii uu ka bixiyay madaxweyne farmaajo iyo sidoo hadalkiisa soo dhigay daawasho wanaagsan waa kan waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed waxa laga faa'iideysanayaa qaybsanaanshaheena inaan qaybsannahay iyo ka faa'iideysanayaan waxay ka faa'iideysanayaan tabardarradeena ka faa'iideysanayaan laakiin wallaahi ma yaqaanaan Soomaali ma yaqaanaan waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed waxa laga faa'iideysanayaa qaybsanaanshaheena inaan qaybsannahay iyo ka faa'iideysanayaan waxay ka faa'iideysanayaan tabardarradeena ka faa'iideysanayaan laakiin wallaahi ma yaqaanaan Soomaali ma yaqaanaan kana waa madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliyeed oo isbedelkii maalintii la caleema saaray ee doorashada la keenay ay u hambalyeysay dowladda Kenya sidii inuu ka tirsan yahay maamul ma aragtay hoostiga Kenya oo kale oo aanan micni ka madax banaan dowladda Soomaaliya si ay u hadalka u dhigeen marka waxa uu soo qoreen warqad hambaliye ah oo micni kala hadlaya ay leeyihiin arinta waxaan ugu hambalyeynayna caleema saarka islaan Axmed Madoobe waatan ee badaawasho wacan iyadana qaabkii hadalka u dhigeen iyo iyadoo faahfaahsan warqadan oo maaragtay aad loogu baahiyay social media oo maaragtay waxyaabo badan lagu soo qaatay daawasho wanaagsan on Cable TV kadib markii shalay xildhibaanada maamul goboleedka Jubbaland ay dib u doorteen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa waxa ka hadlay dowladda Kenya waxaana hambalyo u dirtay madaxweynaha dib loo doortay war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa hambalyo loogu diray madaxweynaha Jubbaland oo markii saddexaad loo doortay xilkaasi waxaana warka qoraalka loogu baaqay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay la shaqeyso dowlad goboleedka Jubbaland isla markaasna wixii madmadowga lagu dhameeyo wada hadal dowladda Kenya ayaa warka qoraalka ay ka soo saartay doorashada maamulka Jubbaland ka hor waxay beesha caalamka uga digtay in la farageliyo hanaanka doorashada dowlad goboleedka Jubbaland
taasoo ka dambeysay kadib markii wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ay sheegeen inay jiraan waxyaabo ka qaldan hanaanka doorashada Jubbaland isla markaasina ay soo jeediyeen in wax laga qabto la saxo warbaahinta dalka Kenya ka soo baxda ayaa doorashada Jubbaland ka hor waxay daabaceen warar sheegaya in dawladda Kenya ay taageero u muujinayso sidii dib loogu dooran lahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dawladda Soomaaliya ayaa dhankeeda ka soo horjeesatay doorashadii shalay ka qabsoontay magaalada Kismaayo waxaana ay sheegtay in aysan aqoonsanayn doorashadaasi oo ay hore bayaan ay uga soo saartay ku cadeysay inaanay aqbali doonin wax kasto balmarsan hanaanka u degan shuruucda doorashooyinka Soomaaliya Cabdirashiid Obsiye Honkeybar TV Nairobi adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida